xafladani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasina ay ka qalin jabinayeen ardayda dufcadda sanad dugsiyeedka 2013-2012 ayaa munaasabadii xafladani waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyadoo munaasabadani ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ugu horeyn ayaa munaasabadani waxa ka hadlay maamulaha dugsiga Shiniilenews Secondary School waxa uu ka sheekeeyay ahmiyadda ay loo soo maray dugsigani sidoo kale waxa ka hadlay isku duwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Hirshabeelle mudane Cabdicasiis Cali Waxays waxa uu ka shanqariyay ahmiyadda ay leedahay maalintani sidoo kale munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Sayla iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda isku dawayaasha wasaaradaha laamaha kala duwan ugu horeyntii ayaa waxa ka hadlay maayarka magaalada Sayla Shiniilenews Barkhadle waxa uu ka sheekeeyay ahmiyadda ay leedahay dugsiga sare ee Shiniilenews Secondary School iyo ahmiyadda waxbarashada waxaana hadalladii ka mid ahaa tahay bay ka horumarsan qofku wuxuu garan waxbarashadu waxay tahay iyo horumarku intuu ku jiro iyo inta looga baahan yahay baa u kala muuqanaysa oo qofkii أنا أنت أقرين كله وكوريا. horta dhammaan waxaad ku mahadsantii waliba ugu mahadnaqayna oo dhammaan aan u gudbinayna warkayaga cid alla cid ku dadaashay in degmada Sayla uu noqdo iskool boardina horta aad baan ugu hambalyeynaya waxaan sugayay balada nimankii u horeeyay waxba yar sugayay laakiin soo dambaysan filaya maarta xafladu waxaan leeyahay ardaynimadu waa qaalin كلي إنتينا هذا نصيبك وهالشيء ka soo qayb gashaan inaad wax dhigataan waxaan filayaa inaad ku baraarugsantihiin tusaale ahaan sida dugsiga sare ee xariirada nin sheegay maanta faaruq ah waa xero ciidan baa gala way qurux badnay inagoo maanta ku dhiganaya halka traag inta leeg aad u soo marteen anigoo magacii dadka iyo dalka ku hadlayo درجات وحلان دي أرضية وحلاها أرضية وحويا ما أنت قول حيد الكاتهين كوي مارتين مليه لبرتين لسوياتهين إن هذا حبرتان ودلكينا يدلكينا يوارديتينا هذا حطرتان بالي نقدونيا si kastaba ha ahaatee dugsiga Shiniilenews Secondary School ayaa maanta waxay noqonaysaa dufcaddii labaad ee ka baxda dugsigaasi isla markaasina xaflad sabootina loogu soo xidho iyadoo xafladani shahaado lagu guddoonsiinayay iyadoo maanta halkaasi ardayda uu ku guddoonsiiyay maayarku shahaado sharaf ay mutaysteen maalintii xuska 18 May isla markaasina uu dugsiga sare ee Shiniilenews Secondary School uu wacdara ka muujiyay Xuseen Maxamed Cabdilaahi Shiniilenews magaalada Sayla.